ciidamada booliiska gobolka Togdheer oo muddooyinkii u dambeeyay howlgallo lagula dagaalamay mukhadaraadka ka waday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyo deegaanada gobolka Togdheer ayaa soo qabtay 354 litir oo khamri ah iyo gaadhigii iyo sidoo kale darawalkii waday gaadhigaasi waxaana howlgalka fuliyay isla markaana ku soo guuleystay ciidamada booliiska ee saldhigga Faarax Omar ee magaalada Burco taliyaha qaybta booliiska gobolka Togdheer gaashaanle dhexe Cali Maxamed Faarax ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkaasi jirna الأيام نقعنتها نكوسو دقي دونا هدي الله كدقو ولي قابا نقا ميريسي بوليسكونا ويكو دابا تاغنان دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم وحنا الله دمان علماء الدين تاع يو حقرتك يو انت عقلك وناكسن له إني مساجدada kaga hadlaan la dagaalanka iyo kontrabankan iyo qurunkan muxuu ahaa mandooriyaha ah inay ka wacyi galiyaan daayirteena iyo cid kasta oo ka ganacsanaysa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba uga digaynaa kuwa waxaan caadeystayo gacanta booliiska ku jirtaan ogsanow wala lagu qaban doonaa maxkamadda wala lagu saari doonaa wala la dagaalami doonaa si bahalkan wala la dagaalami doonaa insha Allah bismillaahir kariim waxaan u mahad celinayaa guud ahaan saraakiisha iyo ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer waxa kale si gaar ah ugu mahad celinayaa taliyaha saldhigga booliiska Faarax Omar Maxamed Umar Suldaan dhammaan Maxamed Umar Suldaan iyo ciidanku watay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa Khaliil Barra Uraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.